Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin maalmaha ka mid ah, wiil ayaa aabihii u tagay wuxuuna weydiiyey, "Aabbo, noloshayda qiimaheedu waa maxay?" Aabbihii wuxuu wiilkii siiyey dhagax, wuxuuna ku yidhi, "Wiilkaygiiyo haddaad rabto inaad ogaato qiimaha ay noloshaadu leedahay, dhagaxan qaad oo gee suuqa. Hadduu qofku weydiiyo qiimihiisana, ha hadlin, kaliya laba faro taag." Wiilkii wuxuu qaatay hadalka aabbihii, wuxuuna tagay suuqii. Isagoo suuqii ka raadinaya qof ka iibsada dhagaxan, ayaa si kadis ah haweeney garab taagneed ku weydiisay qiimaha dhagaxan. Lamuusan hadlin, kaliya laba farood ayuu taagay. Waxayna ku dhahday, "Ma $2? Waan qaadanayaa dhagaxan." Wiilkii wuu la yaabay, aabbihii ayuuna dib ugu laabtay, isagoo dhahaya, "Aabbo, haweeney ayaa rabtay inay $2 igaga iibsato dhagaxan." Aabbihii wuxuu ku yidhi, "Wiilkaygu, meesha labaad een kuu dirayo waa madxafka, ee dhagaxa qaad oo madxafka gee. Hadduu qofku weydiiyo qiimihiisana, ha la hadlin ee kaliya laba farood taag." Kadib wiilkii wuxuu tagay madxafkii. 20 daqiiqo kadib, nin ayaa u soo dhowaaday, kadibna weydiiyey qiimaha dhagaxan. Wiilkii muusan hadlin, kaliya laba farood ayuu taagay. Kadibna ninkii wuxuu ku yidhi, "Ma $200? Waan qaadanayaa dhagaxan." Wiilkii wuxuu dib ugu laabtay aabbihii, wuxuuna ku yidhi, "Nin madxafka jooga ayaa rabay inuu dhagax igaga iibsado $200." Aabbihiina wiilkii wuxuu ugu jawaabay, "Haye wiilkaygiiyow, meesha ugu dambaysa ee aan kuu dirayo waa meelaha lagu iibiyo dhagaxaanta qaaliga ah. Qaad dhagaxa oo gee meeshaas, kadibna la dhexmar meelaha lagu iibinayo dhagaxaanta qaaliga ah. Haddii uu qofku weydiiyo qiimaha dhagaxana, ha hadlin ee kaliya laba farood taag." Kadib wiilkii wuxuu raadiyey meelaha lagu iibiyo dhagaxaanta qaaliga. Markii uu helay kadibna wuu dhex maray. Miiska ka soo horjeeda waxaa fadhiyey nin oday ah. Isla markii uu odaygu arkay wiilka dhagaxa uu wato, wuu soo booday isagoo ku dhawaaqaya, "Oo waxaad haysataa dhagaxii aan raadinayay intaan noolaa abid. Imise ayaad ku rabtaa? Imisaad siinaysaa?" Wiilku muusan hadlin, kaliya laba farood ayuu taagay. Odaygii wuxuu yidhi, "Ma $200,000? Waan qaadanayaa." Wiilkii wuu aamini waayey. Isagoo yaaban ayuu aabbihii dhankiisa u orday, wuxuuna yidhi, "Aabbo, oday jooga meesha lagu gado dhagaxaanta qaaliga ah ayaa raba inuu iga siisto $200,000." Kadib aabbihii wuxuu wiilkiisa dhahay, "Soo ma aragtay wiilkaygii, hadda ma garatay qiimaha aad leedahay? Noloshu waa kolba meeshaad adigu is dhigto. Waad go'aansan kartaa haddaad rabto inaad noqoto dhagaxa $2 ama dhagaxa $200,000. Waxaa jira dadku jecel, kuwaasna waxaad u tahay wax walba. Dadka qaarna waxay kula tacaamulaan hadba xaaladda aad ku jirto. Marka aad dhibaataysan tahayna way kaa kala yaacayaan, markii aad buraaqaysan tahayna way kugu daba faylayaan. Walaalnimadoodana waxay kula jirtaa inta ay dhibaato kaa dheer tahay. Dadkaas agtoodana waxba kama tihid." Muuqaalkeennii intan ayuu noogu egyahay. Haddii aad muuqaalkan u aragto mid muhiim ah, fadlan like saar, kuna soo biir channelkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan ku leeyahay ahaw qof togan.